kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV. qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa ka mid ah khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo ayaa cirka isku sii shareeray iyadoona caawa qaar ka mid ah golaha wasiirada ay ka hadleen xaaladda magaalada Beledweyne. arrintan ayaana u muuqatay in ra'iisul wasaare Roble uusan gacan ku hayn talo iyo sidoo kale guud ahaan ciidamada iyo arrimaha doorashada. waxaana ka soo baxay warka mid ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in waxa ka dhacaya guud ahaan dalka ra'iisul wasaare Roble waxba ka ogeyn oo ka yahay dibad joog iska jooga gudaha filla Soomaaliya. arrintan oo cabiraysa awoodda iyo tayada siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Roble ayaa ceeb ku noqonaysa in isagoo ah wasiirka koowaad ee xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya uusan gacanta ku hayn xitaa qayb ka mid ah ciidamada dalka. magaalada Beledweyne ayaa laga soo sheegayaa warar cusub kuwaas oo sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aad looga sii daabulayo iyagoona wararku inta ku darayaan inay qarka u saaran tahay magaalada inuu dagaal ka bilaawdo kaas oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gorgor iyo maleeshiyad beeleed taageersan mucaaradka oo kaabiga u saaran magaalada kuwaasi oo shalay ka kala cararay markii ciidamada xoogga dalka gaar ahaan gorgor laga dejiyay garoonka weyn ee magaalada Beledweyne. dhinaca kale doorasho ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoona weli ay doorashadu si xawli ah uga socoto gudaha magaalada. doorashadan ayaana waxaa ku tartamaya siyaasiyiin jilba culus ah oo qaarkood ay yihiin saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dagaal culus oo u dhaxeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo Tigray oo mar kale ka qarxay gudaha dalka Itoobiya iyadoona arrintan ay imaanayso xilli wada hadallo xabad joojin ay ku dhawaaqeen beesha caalamka iyo dalalka daneeya arrimaha dalka Itoobiya. dagaalkan ayaana salka ku haya sida wararku sheegayaan Tigray oo doonaysa inay banaysato wado siyaasadeed oo ay ku go'do iyadoona ujeedkeedu uu yahay in noqdo dalka madax bannaan dalka Itoobiya. qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo fura gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sareysa ee dalka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa aad u soo ifbaxaya xilli dalka uu galayo xaalad doorasho. khilaafkan ayaa mar kale dib u soo laba kacleeyay kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu amar ku bixiyay in ciidan la geeyo magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan oo ay shalay qabsadeen maleeshiyad taageero ka helaya mucaaradka Soomaaliya oo ku jiro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. qaar ka tirsan siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa xalay ka hadlay xaaladda ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. siyaasiyiintaasina waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Generaal Mukhtaar oo si kulul uga hadlay ciidamadii shalay la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. wasiir Mukhtaar ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisu aysan waxba ka ogeyn ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan taasi oo dhaawacaysa sharafka ra'iisul wasaare Roble maadaama uu yahay wasiirka koowaad ee xukuumadda isagoona mas'uul ka ah dhammaan ciidamada. haddaba arrintan ayaa soo baxaysa bil kadib markii madaxweyne Farmaajo uu shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha iyadoona tan ka dhigaysa inay dhabowday go'aankii madaxweyne Farmaajo maadaama uusan wax saameyn ah ku lahayn ra'iisul wasaare Roble arrimaha doorashooyinka iyo ciidamada. maadaama ciidamadii shalay laga dejiyay magaalada Beledweyne la dejiyay xerada ciidamada ee Lamagalaay oo ay ka dhacayso kuraasta baarlamaanka ka soo galaya magaalada Beledweyne ee maamulka Hirshabelle. ciidamadii shalay la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa muujiyay taagdarrada ra'iisul wasaare Roble maadaama uu ku guuleysan waayay xitaa inuu askartaasi ka joojiyo airportka. Roble oo arrinta aad uga carooday ayaa awoodi waayay waxa uu qabto waxayna awoodiisa ku soo ilaatay inuu markasta waqti ku lumiyo boqortooyinta horumarka ka socda dalka isagoona aan saameyn gooni ah ku lahayn dowladnimada iyo howlaha guud ee ka soconaya guud ahaan dalka. madaxweyne Farmaajo ay ka go'an tahay horumarinta iyo la xisaabtanka madaxda dowladda ayaa ka tallaabsaday wuxuuna muujiyay inuusan u baahnayn in ra'iisul wasaare Roble uu ka caawiyo ama se ka shaqeeyo arrimaha dalka maadaama uu ka dhigay shakhsi aan waxtar lahayn
oo kaliya iska joogo guriga. arrintan ayaana imaanaysa xilli ra'iisul wasaare Roble ay muuqato inay gacantiisa ka baxday arrimaha doorashada iyo guud ahaan amniga dalka, maadaama madaxweyne Farmaajo uu si toos ah u maamulayo dalka. ciidamada saraakiisha qaybta ugu badan ee golaha wasiirada ayaa ka amar qaadanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyadoo aysan jirin hal shakhsi oo amar ka qaadanaya ra'iisul wasaare Roble. bil ka hor ayay ahayd markii Roble isku dayay in lacag 2018 laga qabtay Imaaraadka Carabta uu ka soo bixiyo bangiga dhexe ee dowladda, balse madaxweyne Farmaajo warqad uu soo saaray ayaa looga hor istaagay in lacagtaasi uu soo bixiyo, iyadoo dadka mucaaradka ay qabeen in Roble uu awood xoogan ku leeyahay dowladda. balse 27kii bishii December ee sanadkii tagay wixii ka dambeeyay dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaare Roble wuxuu ahaa mid kooban. wuxuu dhowr mar isku dayay inuu safaro u aado dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, waxaase lagu qasbay inuu safaradaasi ka baaqdo maadaama uu yahay ama loo haysto inuu galay gabadfallo ka dhan ah dowladda iyo inuu ku dhaqaaqay ku takrifal awoodeed, isagoona si qaldan u isticmaalay awoodda dowladnimada. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu ku kacay xatooyo xoolo dadweyne. fadeexadaha ra'iisul wasaare Roble ayaa maalinba maalinta kale soo baxaya, isagoona awoodiisa ee markii hore ku koobneed inuu soo saaro warqado uu isku dayo inuu ku jahwareeriyo dalka, balse arrintaa ayaan markii dambe lagu qasbay inuu joojiyo. madaxweyne Farmaajo wuxuu u muuqdaa shakhsi gaaray isku filnaansho siyaasadeed, maadaama uu dalka si xasiloon ugu maamulayo, isagoona mar walba adeegsanaya awoodda dowladnimada, la xisaabtamayana dambiilayaasha ka galay dalka dambiyada. Cali Guudlaawe ayaa doonaya inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isagoona ilaa iyo hadda ay u diidan yihiin xubno qaswadayaal ah oo ka amar qaata mucaaradka oo diidan in madaxweyne Cali Guudlaawe uu ka dago magaalada labaad ee ugu weyn maamulka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa lagu wadaa inuu dhawaan gaari doono magaalada Beledweyne kadib markii ay nadiifiyaan ciidamada xoogga dalka oo shalay la geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dhinaca kalena dalka Itoobiya waxaa ka bilowday dagaallo cusub oo u dhaxeeya Tigray iyo dowladda federaalka ah ee Itoobiya. shalay dagaal ay soo qaaday maamulka Tigray ayaa waxay ku qabtatay dhul badan oo ka mid ah Amxaarada iyo Canfarta, dhulkaasi oo horey uga baxeen, balse dagaalka oo maalin iyo saacado wax ka badan qaatay ayay dib ugu laabteen goobahooda, iyagoona sheegay inay ixtiraamayaan heshiiskii qaramada midoobay ee dalka Itoobiya ee la galeen ee xabad joojinta ahaa. Tigray ayay wararku si hoose u sheegayaan inay doonayso inay ka madax bannaanaato dalka Itoobiya kadib markii ay ku fashilmeen inay dalka xoog ku qabsadaan. arrinta Tigray ayaa qabsatay guud ahaan caalamka, isagoona ra'iisul wasaare Abiy uu ku adkeysanayo in Tigray ay ka sii mid ahaan doonto Itoobiya inta uu xukunka joogo. haddaba halka waxaa inooga eg wararkeena subaxnimo. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena Calanka TV, subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.